saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladda ay joogta labadaba wuxuu runtii hadalkaygani uu daaran yahay doraato golaha hawshii ka dhacday runtii waxay ahayd arrin nasiib darro ah oo guud ahaan aanu ka xunnahay aniga iyo shir guddoonka iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee uu golahu ka kooban yahay waxayna ahayd runtii dabeecadaha golayaasha noocan oo kale ah bay ka mid tahay in khilaaf uu yimaado oo aragtida sharciga la isku khilaafo qolobana dhinac bay iska taagtay aragti sharci oo golaha taallay waana arrimaha uu dastuurka u jidaynayo xildhibaanku inuu aragtidiisa cabiri karo oo uu soo jeedin karo taas uun bayna ku salaysnayd wixii xildhibaanada iyo mudanayaasha golaha dhex yaalay taasay ku salaysnayd waxayna ahayd runtii intaas uun ay ku dhammaato waxa yimid uun oo runtii dheeraadka ah waxay ahayd qalalaasihii yaraa ee amni ee meesha ka dhacay wuxuuna ku yimid isfaham darro oo runtii iyadoo aan wax weyni jirin oo laba xildhibaan oo isafdhaafay ay dhacday oo ay gacani dhex martay si badanna loo karayey in ciidamada amniga qoladii u joogtay golo ay cabasho gudbiyeen oo taliskii guud ciidanka u gudbiyeen taasayna ciidankii kale ee boolisku ku yimaadeen waxayna u yimaadeen runtii arrin amni uuno dee warwar ay qabeen oo golahu waa golo xasaasi ah waa golihii xeerdejinta ee dalka saamayntiisuu leeyahay markaa laftigeedana warmaqabtadii uunbay ka dhacday buuqii kale ee ka dhacay meeshuna isfaham xumadii iyo iyadoo aan la is ogeyn oo aanu jirin wax maaragtay communication oo u dhaxeeya labada qolo ayaa keentay in uu dhaco xoogaagii qalalaasaha ee halkaa ka dhacay runtii guddoomiye ahaan iyo shir guddoon ahaanna aad baan uga xunnahay waxaanu runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horeeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahee gaadhay xildhibaanadii golaha wixii dhibaato ahee gaadhay iyo ciddii kale ee ama ha noqoto saxaafad ama dadkii kale ee goobta joogay wixii dhibaatay soo gaadhay aad iyo aad baan uga xunnahay waxayna ahayd un kaliya in isfaham jiro oo ciidanka guud ahaan amniga waxay ilaalinayaan golaha iyo dalka labadaba bay ilaalinayaan iyagana inay aanay dhicin meel uun tuun ka iman karo inuu yimaadaan inaan gacanna loogu jawaabin oo aan laga ficil qaadan oo si fudud loo dhammayn karayey laakiin arrintaas waxay uun ku dhacday isfaham xumadaasay ku dhacday ciddii wax gaadhayna ciidamada ana runtii waanu taliskii ciidanka oo taliyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo taliyaha howlgelinta hogaaminaya waa ka wada hadalay waxaanu u muujinay annana inaanu ka xunnahay wixii dhibahee dhacay iyo in ciidanka wax gaadhaana marra aanaan ogolayn raallina aanaan ka ahayn dhiiri gelinaynin runtii taasaan u muujinay iyana intaa in la-eg waxay nala qaateen in golaha wax dhibaato ay soo gaadhaan iyo in xildhibaanada wax dhibaato ay soo gaadhaan inaanay rabin una dul qaadanayn waxay u socdeen ay amnigooda iyo ilaalintooda ay tahay marka inta aan rabay inaan muujiyo waxay ahayd in ay u isfaham waagaasi dhacay laakiin ciidankuna uu yahay ciidankayagii ay yihiin kuwii amnigayaga u xilsaaraa ilaalintooda iyo dhowristooda naftooda iyo wixii hub ay dalka u hayaan iyo noloshooda intaba in la daryeelana ay waajib wada saaran tahay hadday tahay madaxda qaranka oo ay xildhibaanada labada isteedka halka fadhiya ka mid yihiin ama shir guddoon ha noqdeen ama xildhibaan ha noqdeen iyo haddii ay noqoto guud ahaan shacabkaba waxaa runtii ay noqon doontaa oo iyadana aan si fiican rabaa inaan u caddeeyo xildhibaanadu inay u dareemaan in ciidamada amnigu ay yihiin ciidankoodii oo mas-uuliyadda ka saaran tahay ilaalintooda iyo dhowristooda ciidankana ay uun ogaadaan in xildhibaanadoodu ay yihiin dad xasaanad leh dhowrsoon qaabka ay ula macaamilayaan iyo haddii uu ixtaag dembi dhaco qaabka ay ula macaamilayaan uu noqdo qaab u qalma xasaanadooda iyo dhowrsanaantooda dabadeedna uu halkaa ka dhasho ixtiraam mutabaadila oo labada dhinacba dhex mara uu ka dhasho laakiin wixii isfaham xumo ah meesha ku jirayna runtii waanu ka saaray oo taliyihii ciidanka waanu ka saaray amniga cid baa iska leh ciidanka booliska iska leh iyagaana mas-uuliyaddeeda leh wixii kale ee golaha iyo hawsha ka socotana golaha iska leh waxaana la rabaa cid baa wada xidhiidhaysa inaanay ciddii aan isgaari karin inaanay isgaadhin oo wadadeeda aynu u marro qolo walba ay u marta baa loo baahaya insha allah intaa markaan ka gudbo
buuqii golaha ka dhacay waa sidaan idin sheego dabeecadaha golayaasha ay ka mid tahay in la isku khilaafo aragti sharci xildhibaanaduna waa rag saaxiib ah intii shakhsi ahaan wax u dhexmareen gole ahaan gacantaanu isu saaray wax dhibaato qaarkoodna saxaafadda ay la hadleen wax dhibaato hadda dhex yaalana ma jiro laguma kala qaybsana xisbinimo laguma kala qaybsana kaliya waxay ahayd waxay isku khilaafeen aragti bay ahayd aragtidaana waa sharcigii loo diray oo qofba uu si u waajahayay tafaasiirteeda sharci bayna ku kala baxayaan goluhu cid buquurinaysaana ma jirto xumaan golaha dhex taalaana ma jirto buunbuunin kalena ma jirto waa uun intaas golaha hawlihii goluhuna ee wixii dhexdooda yaalayna golahu isaga dhamaysanaya oo si wanaagsan u dhamaystiraya shaqooyinkiisii caadiga ahaa day to day-ga ahaana isaga u soo noqonaya oo golahu ku soo noqonaya intaas bay ahayd marka waxaan jecelahay cid kasta oo arinta ka samaysay ama buunbuunisay ama laga yaabo inay xog uga baahnayd oo doonaysay inay xog ka hesho waxa dhacay intaas ay ahayd xildhibaano isku aragti isku diiday qorana halka fadhiistay qorana xagga tagtay qasir iyo gacan ka hadal yaro dhacay iyo isfahmi waagaas markii hore soo dhax galay ee qolada amniguna dabacday inay soo xaliyaan qolihii xildhibaanaduna iyagoo warbaqabta ah ay qaab kale uga jawaabeen intaas bay ahayd marka hawshaas halkaas ay ku dhamaatay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa qoladiina saxaafadda insha Allah taala waa mahadsantihiin